dhisnay kiis wasaaradda waxbarashada ee maanta waxbaan bedelayaa naguma darsan iskuulka waa lagu soo duulay waxaana la doonayaa in la xiro sadaqadii yareed ee baxsan jirtay subaxii la kalihi jirtayna in la yiraahdo meelaanay ma garanaysaa idba joogin aanan haba yaraatee hawsha anigu aqbalaynin dugsiga leegu leeyahay tagna aanan tagayn sharci jabin weey waxaan u leenahay waanu taakiidinaynaa adkaynaynaa niman yahow ma aha in ma garanaysaa kili qoorta la isu geliyo oo qasab wax walba laga dhigo arinta gudoomiye lagu maagaya wax cadaynana umu hayn isagay ku tahay khalad iyo madax goosasho uu nagu sameeyay meel oran kan nidaamkii waxbarashada ka tirsanada ka hortimaad wuxuu malaha Shaafici inuu maamulo dugsi hoose magacaabo awoodu ma leh inuu bedelana awoodu ma leh waxay noqotay in aan xiniyo dab saaro halkaas sifo kastoon arday ku keenaya inaan ku keeno ka waalid ka wareejinaya khasab baa la kaga qaadaya halkii la geeyay baa tagaysaan disaasina wax suuragal ah ma aha ardayda dugsiga qaad maxamuud kamido eerka barxada dhaha wuxuu soo diray warqadii warqadan anigu ogeynba maamul waa lagu bedelay ma waxa uu shaarkeen miinooyin baa ka kacay kadinkii aan ku baxaynay maalin walba ama markaan gaariga helo aan ka raacaynay waxaan soo sabrayo joogay iyadoo daayeerku biyaha yare birkada aan ku shubnay intuu u soo daato maamulayaasha afar iskuul oo kamid ahaa wareegto isku bedela oo dhawaan gudoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer ku soo saaray badiba dugsiyada Burco ayaa guud ahaan badbaadafeeyay isku bedelka lagu sameeyay maamulka dugsiyada ay hayeen ee la sheegay in laga qaaday aanay sharci darro ku tilmaameen wareegtadaasi guud ahaanna waxay sheegeen in aanay aqbalaynin warqadda ka soo baxday xafiiska waxbarashada ee gobolka Togdheer maamulayaashan ayaa hogaaminayay dugsiyada ay kamid yihiin dugsiga sare Ibrahim Jaamac Dhiif Haliqin dugsiyada hoose dhexe ee Qaadim Maxamuud Xaaji Cabdi Saciid iyo Sheekh Yuusuf Alkawnayn ee magaalada Burco waxaanu cambaaraynaynaa waxaanu ganafka ku dhufanaynaa waxaanu dadafeynaynaa wareegtadii maalintii dhaweyd ka soo baxday xafiiska waxbarashada gobolka Togdheer ee ahayd isku bedelkii la isku bedelay maamulayaasha magaalada Burco waxyaabahan u cambaaraynayna waxaa ka mid ah wareegtadaasi may ahayn mid ku salaysan xeerka waxbarashada aasaasiga ah gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer awood uma laha isku shaadhaynta noocaas oo kale ah waxaa jirta xeerka waxbarashada aasaasiga ah ee 2025 soo baxay maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ama waxbarashada aasaasiga maamulayaashooda waxaa xeerku jideynaya inuu magacaabo xeerka habraaciisu wuxuu jideynaya inuu magacaabo gudoomiyaha degmada ee waxbarashada Marwe Farduus Marwe Farax Maxamed Kaahin total arinta uu hareer maray gudoomiyuhu isaga oo gudoomiyuhu gobolka oo aan shaqada lahayn baa gacanta geliyay waxaa jira maamulayaal dugsiyo hoose dhowr maamule oo gudoomiyaha degmadu magacaabay ayaa maantana nasiib darro iyo khimrad la'aan gudoomiyuhu gobolku uu ku talaabsaday inuu xilka ka qaado sababtaasi waa sharci darro xeerkii habraaca waxbarashada aasaasiga lama raacin waxyaabaha kale ee lagu dadafeynayo waxaa ka mid ah isu dheelitir la'aan dugsiyada ah dugsiyadu way kala baaxad weeyihiin way kala arday badan yihiin way kala nidaam fiican yihiin way kala waxbarasho wacan yihiin dugsiyada magaaladu magacun bay dugsi ka yihiin isku mid maaha dugsiyada magaalada dugsi waliba
maamulkiisu siduu u eg yahay bay u eg yihiin nin shaqeeyey oo dugsigiisa ka shaqeeyey oo meel fiican gaadhsiiyey iyo nin dugsigaa la seexday labadaba way leeyihiin waxyaabaha kale isu dheelitir la'aanta ka mida ragga wareegtadu khusayso shakhsiyaad aada u kooban oo ama 3 ama 4 mooyaane inta kale waa dad da'dii ritaayarka maraya oo lanagu hagaajiyey waa dad maraya maamulayaal da'dii ritaayarka maraya oo nalagu hagaajiyey anigu waxaan ahay maamulaha dugsiga sare ee Mujaahid Ibraahim Jaamac Halliqi Maxamuud Axmed Gorse iskuulka waxa la furay 2013 baa la dhisay 2014 waa la furay bishii 12 arday baan ku furnay waxa lay dhiibay oo furayaasheeda laygu wareejiyay waqtigii gudoomiye Cabdi Axmed Saciid iyadoo 3 galaas ay dhisay hay'adda keer ay dhistay oo meeshana intay miina ka qaraxday waqtigii la dhisaayay eeriyada oo dhan cagaf la geliyo bus iyo buubi ay tahay oo ay tahay meel magaalada ka go'anaanay magaaladu gaadhin oo ardayda halka imanaysa ay tahay arday masaafo dheer soo lugaynaysa oo meeshu ay magaranaysa ardayda looga baqayo ayaa lay dhiib waxay noqotay inaan xiniyo dab saaro halka sifo kastoon arday ku keenayay inaan ku keeno waxaan xasuusadaa waxyaabaha aanu sameynay waxa ka mid ah inaanu intaanu dhul iibinay baabuur kireynay ardayda soo qaada marka dambena celisa si iskuulkaasi u furmo waxaan xusayaa nin dareewal ahaayo aada noola shaqeeyo la odhan jiray aadan xawley sanad 12 bilood baan lacagta u qadimay anigoo go'aankaygu yahay in arday walba intuu xaq gurigiisa ka soo qaado si lacag la'aana oo iskuulka soo galay marka dambe inaan ku celino aniga iyo macallimiintii ila bilowday axdi iyo qowl iyo go'aan aanu meel dhiganay 2 sanadood wax naga soo galay ma jiraan waxaanu isaga ku celino mooyaan nagoo muwaadiniina oo waqtiga ma garanaysa ay duruufo badan nagu xiran yihiin baanu 2 sanadood anagu aanu ku shaqeynaynay sacrifice wixii inta ka dambeeya maalinta ka dambaysa culaysku uu naga soo yaraanay iskuulkii 3 fasal laygu dhiibay maanta waa 9 fasal maanta dayr baa ku wareegsan 288 mitir oo dayr baa wareegsan oo afartiisa qabcad waliba waa 270 mitir anaga dhisnay kiish wasaaradda waxbarashada maanta le waxbaan bedelayaa naguma darsan iskuulka meel kale oo badan aan u garaacnay diaspora aanu garaacnay ee ardaydii macallimiintayadii oo aanu ma garanaysay isku celcelinay wax qurba joog dad kale oo ganacsato oo magaalada aanu hadba dhinac baanu ula dhisnay annaga iyo dadkii waqtiga nala joogay fasalada noo dhisan aanu dhisanay qaar baanu shirkadaha intaanu ku nuni dhisa annaga lacagta idin doonaynay qaar ba meel baanu ka dhisnay Soomaalidu waxay tiraahdaa nin reer weyn iyo gabadh ka umulisaa midna sidii wuxuu jiraan uma sheego 522 mitir oo dhulka aba marmar noo yaala marmarka wadanidii noo yaala waxaanu leenahay beero aanu meesha dhexdeeda ka samaynay shirdiinooyin kaabadaha caruurta ku fadhiisato dalladaha yaryar ee caruurta ku fadhiisato ee nusaaca iyo loogu talagalay hablaha kaabadihii lagu nusaacinayay haddaad maanta iskuulka soo booqatid waxaan u malaynayaa uu ka qurux badan yahay madaxtooyada magaalada Burco ee markuu madaxweynuhu yimaado lagu soo dhaweeyo taa cid walba oo timi waa iga maqraatay
ciddii aan imanno waxaan leeyahay soo booqo waxaasoo tacaba annagaa ka geysanay waxaa jira hanti fara badan oo la leeyahay oo shirkadii leeyihiin oo bakhaaradii constructionadu leeyihiin oo shirkadahan maalgelinta sii bixiyaa leeyihiin oo weli la leeya socota dee ninkayga sidaa u dadaalay baalla aan ku duulana dee haystay oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayo macallimiintayda iyo ardaydaydii kala duwanaydee aanu meesha soo wada bilownay iyo kuwa ilaa hadda i garab taagan mar walba iskuulka waxqabadkiisa iyo horumarkiisa iyo tacliintiisa aanu isku garab taagannahay meeshii aanu saa uga soo shaqaynay in maanta dee naloo abaal celiyo mooyaane in si ku tiiqsile nala yidhaahdo meelo aanan u qalmin taga meelo hore dawladdu hore u xidhmay taga dee waxaanu u aragnaa madax goosasho qofka bini aadamkii markuu shaqeeyo dee wuxuu sugayaa in la abaal mariyo oo la dallacsiiyo oo birimo la siiyo laakiin in waxqabadkiisii lagu ganaaxo oo lagu toojargareeyo oo weliba aflagaadooyin iyo magaranaysa hanjabaado loogu daro dee meel ay dunida hoosteeda ka dhacdaa ma jirto anoo ku hadlaya afkayga xil wareejin aan wareejinayaa ma jirto xil kaloo aan dugsigayga ahayn aan la wareegayaana ma jirto mar haddii nala sharfi waayo nala cisayn waayey qofka bini aadanka ah waa la bedeli karaa oo maaha geed ka baxay meesha laakiin waa in sifooyin loo maraa hagaagsan waa in xeerkii saxda ahaa la maraa waa in dee meeshanuu ka tegey dee meel kaloo macquula loo bedelaa haddii dee la nasinayana dee waa in sifaheeda la maraa iskuulkaa maanta waxaanu aaminsanahay iskuulkaa waa lagu soo duulay waxaana la doonayaa in la xidho oo xaafadda laga xidho oo October laga xidho oo ardayda laga xidho oo macallimiinta laga xidho horena waa lagu guuleystay iskuulo dawlad wasaaraddu hoos tagto shaqaynaya oo fiican oo hore loo xidhay iyadoo loo xidhayo dana gaar oo shakhsiyaad iyo ama iskuulo loolamaya ama nidaamyo kale iyadoo loo adeegsanayo iskuulo hore la xidhay saa ku weeqbay baa jira waxaan leeyahay haddii dawladdii aynu rabnay inay dugsiyada horumariso oo dugsiyadu hadday yar yihiin kuwo cusub furto oo waxbarashada horumariso hadday damacday inay dugsiyadii xidho de waxaan u malaynayaa waa xisaab kale iskuulkaa 8 dafcaddaa ku jirta waa dafcaddii 9aad sanad walba 150 arday baa ka baxa oo foofora laba fasalo ama 150 ama 190 ama 180 baa sanad walba ka baxa laba fasalo fooforo ama 77 ama 88 ama ayaa ka baxa waxaasoo aan ubad soo saarnay wax dhaliil yeeshay kuma jiraan iskuulka keliya ee magaalada ku yaala ee ilaa maalintii la furay ilaa maanta aan hal arday ka dhicin baanu nahay iskuulka 2 jeer kaalmi ugu sareeyay qaranka galay baanu nahay marna kaalmi ugu sareeyay qaranka marna kaalinta ugu sareysay kaalmi ugu sareeyay gobolka galay baanu nahay dee dadkaygii saa u dadaalayay in maanta dee madaxa nala goosta waxaanu aragnaa dulmi ay wasaaraddu naga gashay ta gobolka iyo ta qarankuba wasiirka wasaaradda waxbarashada Professor Ismaaciil wasiirka cusub anigu 2 jeer baanu hor fadhiisano si shakhsi ah hor fadhiisanay Hargeysa 2 jeer ba iskuulka duruuftiisa uga warramay anigoo u ceelaliya taga 2 jeer ba wixii aan wasiirka ka doonayay intaan ka waayay ayaan anigu meelo kale ka dabari
waxaa makhraatiye fasalkii iminka soconayay ee isagoo soconaya wasiir cawil galaydh uu booqashada ku yimi iskuulka annagaa fasalkii dhisanay iminka annagoo dhammaynoo daaqadihii noo harsan yihiin almuniyamka aanu gelinaynay ayaa hawshani dhacday waxaan leeyahay wasiirka wasaaradda waxbarashada professor ismaaciil iyo wasiir cawil galaydhba waxbarashadu waa waxa ugu qaalisan qaranka ma aha waxbarashada in la geliyo ama la siyaasadeeyo ama dana kale oo gaara lagu eego muraayado dana kale oo gaara laga arkayo in lagu eego ma aha waxaan leeyahay iskuulkaas waa lagu soo duulay in la xidhaa la doonayaa dee arrintaa haddii aanay dee sidaas ula soconin dee waa in wax laga qabtaa insha allahu tacaala waxaa jiray maalmihii u dambeeyey mudaharaado iyo kacdoonno ka socday magaalada maamulka gobolka iyo sidoo kale gudoomiyaha waxbarashada hadlayna waxay sheegeen arrintaas in maamulayaashu ka dambeeyeen ma la odhan karaa idinkaa qayb ka ahaa inay ardadaas mudaharaad ka sameeyaan lama odhan karo annagu kamaanu dambayn ninka yidhaahda waa ka dambaysayna dee isagaa caddaynaya waxaan cuskanayaa laba sababood in aanaan ardayda kacdoonkeedii ka dambayneyn ee isla wasaaraddu ka dambaysay qodobka koowaad maalintii warqadda la soo saaray goor duhura miidiyaha lagu soo daayay dadkana maanta waa facebookaris ardayda iyo dadka magaaladoo dhani qof waliba isagoo halkiisa joogo wuxuu ka sugtay isbeddelka ku dhacay iskuulkiisii ee aan loo meeldayin qof walba xaaladdaas baresharkiisu cirku tegey waxaa intaa noo raacda dee in gaar naloo maagayba oo dee maxamuud cali saleebaan rabaa xafladdii oo maalintii dhawada xil wareejinta guddoomiye xoghayaha uu dee hadallo kulkululoo dee maag iyo hanjabaada uu yidhi nimankaasaa iskuullada kiciyey dee usaa yidhi arrimahaasoo dhani arrintaa guddoomiyuu nagu maagayaa dee wax caddaynana umu hayn isagay ku tahay khalad iyo madax goosasho uu nagu sameeyey hadalkiisaasina dee kacdoon isagaa samaynayaba markaa sidaasaan loogu filayna inaan marnaba annagu ardayda ku cidno ardayda waxa kiciyey waxa dee warqadda miidiyaha soo dhigay ee hawsha sidaa la garanaya u galay meel la odhan karin nidaamkii waxbarashada ka tirsanada ka hor timaada maya maxamedow lama odhan karo nidaamkii waxbarashada waanu ka horrimnay oo marka hore nidaamku ma saxsanaa waxaa la yidhi findhicilku ma xaaraanba mise waa xalaal iyo xuskiisaaba xun marka hore waxbarashada iyo wareegtadani qaabkay u soconaysay ma raacaysay xeerkii iyo habraacii saxda ahaa ee waxbarashada aasaasiga ah ee ay kala saxiixdeen wasiirka wasaaradda dowladaha hoose iyo wasiirka waxbarashadu xeerkii ay kala saxiixdeen xeer 2025 may raacaynin maadaama aanay xeerka raacaynin marka horeba sharci darro tahay aniga magacayga wuxuu ku soo baxay dugsi hoose dhexe sare dee awoodu ma laha shaafici inuu maamulo dugsi hoose magacaabo awoodu ma leh inuu bedelana awoodu ma leh xeerkaa sheegaya maamulayaasha dugsiyada sare laftarkooda marka dee gacanta la gelinayo dee waa inay jiraan la tashi lala sameeyey dee wasaaraddii dhiijigii iyo wasiirka waxbarashada wakhtiyada lagu soo beegay xitaa wakhtiyo ardaydii fadhido oo hagaagsan tahay oo ma garanaysa maaha waa wakhtiyo markii ardaydu fadhiisanaysay dugsiyadii bilowgii ay ahaayeen oo iskuulkii marka horeba uu ku jiray wakhti starting way haddii wasaaraddu ku sii adkaysato go-aankeeda maxaa kuu qorsha adiga maxamudow horta anigu marnaba meesha ay igu yidhaahdeen tag dee anigu tegi maayo anigu dee dameer la rarayo oo maalin walba meel qaranku leeya laygu odhanayo intaad siiro ka bilowdo markaad figta geyso duca qabe iskaraw dee ma ihi qaranka meel baan ugu dhintay xaafadda octoobar meel baan ugu dhintay
dadkii aanu soo wada shaqaynay education stakeholderska ahayne tacabka badan aanu soo wada galanay meel baan ugu jiray dee mar haddii tii laygu xushmayn waayey oo laygu qadarin waayey dee in maanta meelo kaloo aynu ognahay marxaladaha ka taagan iyo inay cid gaari sheegataba oo ay lahaayeen aabbahayaa lahaa iyo howlo la mida dee marnaba tegi maayo anigoo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee xaaji cabdi siciid isku shaandhaynta uu sameeyey guddoomiyaha gobolka togdheer ee burco oo markaasi aada moodo aan cadaaladna ahayn sharcigana waafaqsanayn ama habraaca u yaalla wasaaradda waxbarashada inuu ku tallaabsaday haddaan ka hadlo xilligii aan anigu iskuulkaa imi waxay 2016 maamulihii iga horreeyey oo waliba markaa mushahar ka qaadan jiray ee dowladda gulno ka qaadan jiray sanadaan dhammayn buu markaa joogay uu ka cararo iskaga tegey guddidiisii iyo siduu isugu yeedhay anigoo maamul ku-xigeen markaa uu ahaa buu markaa xilkii laigu wareejiyey waxaa ardada aanu ku qiimeynay markaas qaadi maxamuud mar baa la wada dhisiiyey iskuulka annaga 4 baanu qiimeynta fadhiisanay waxaa naga baxay 17 dafcadood oo markaa 17 dafcadood oo eedha weli arday iskuulkaa ka baxay oo dhacay lama hayo waxaa iga markhaatiya xafiiska imtixaanaadka gobolka togdheer iyo shaqaalaha jooga taasi waa qodobka koowaad guddoomiyuhu wuxuu baalmaray sidaa maamulihii hore sheegay xeerka u yaalla iyo habraacyada u yaalla wasaaradda waxbarashada oo ah dugsiga hoose dhexe inaan guddoomiyuhu isku beddelkiisa aanu xaq u lahayn ee DO-gu xaq u leeyahay DO-guna dee xafiiskiisa uu furan yahay oo uu joogo uu shaqeeyo taas waanu markaa ku ambaaranaya guddoomiyaha sidii hore ay ahaan jirtay marka wax la bedelayo qofka dee waa loo yeertay xafiiskaa looga yeeri jiray laga xukumo sida wax yihiin baa loo sheegi jiray ama ha yeelo ama uu yeeline waxa weeye waxa la siin jiray og baa la siin jiray laakiin saxaafad buu adeegsaday ardaydii iyo dadkii xaafadda ayaaba annagii noo sheegay oo yidhi oo saasaa dhacday miydaan ogeyn miyaad ogeyn in saa liyi waxa weye taasina waxay noqotay waa ku cambaaranaya guddoomiyaha inay dee markaa khibrad darro ka tahay iyo inaanu markaa dee aqoon u lahayn sharciga ah taana waan ku eedeynayaa aniga meesha la geeyey waa meesha ugu liidataa waa caqabad waa toga qarkiisa kale iskuul yaroo garbo ka laalaada oo maxaanku dhahdaa afar galaas baa liigu dhiibay maantana 9 galaas baa dhisan maxaanku dhahdaa 60 arday ayuu kaga tegey maamulihii hore laba xafiis oo markaa waashmaanadu midna seexdaan midna istoor yahay ayuu gacanteeda ku dhisanay iskaa wax u qabsan soo safray maanta weyli noqon weydi sadaqadii yareedee dee baxsan jirtay subaxii la kalihi jirtayna in la yidhaaho meelaanay dee ma garanaysaa ciidba joogin oo garbo ka laalaado oo togii dhinac umar aan biriish lahayn inaan haddana dib ugu noqdo oo markaa dib ugu lumiyo waqti dambe taas ayaan markaa iyana aan markaa caddaynayaa inaan markaa aanan diyaar u ahayn dee maxaanku dhahaa warqadan ka soo baxday guddoomiyaha magacaygu waa maamule cabdiraxmaan salebaan kaahin waxaan ahay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee qaadi maxamuud burco shir jaraa'id kaas oo aanu ku qaadacayno amaba aanu kaga hadlayno waxaa loo yaqaano isbeddel lagu sameeyey maamulayaasha dugsiyada dowliga ee gobolka togdheer saynu wada ognahay 2 casho ka hor waxaa soo baxday warqad taasoo lagu soo saaray in maamulayaashii laisku bedbedelay ma xumaba in maamulayaasha laisku bedbedelay ee qaabka naloo bedelay oo ay kow ka tahay in guddoomiyaha
iminka xilka naga qaaday ama iskuulkana noo bedelay aanu sharci ahaan u lahayn ayaa maxay ahaatay kow ka ah waxyaabaha aanu doonayno halkan aanu ka caddayno. Anigu waxaan ka mid ahay maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe. xilligii la magacaabay wasaaradda waxbarashada waxaa joogay dee guddoomiye heer gobol iyo guddoomiye degmo uu joogay. waxa laygu magacaabay ama i magacaabay guddoomiyihii degmada waxbarashada ee xilligaa joogay ayaa i magacaabay. dee wax walibana sida annaga maanta naloo leeyahay iskuul dawliyaa joogteeno iskuul kaloo dawliyaa baa laidin geeyey waxa weeyaan dee yeeloo aqbala. waxa weeyaan xeerka la soo saaray ee la qorayna ciddii ka geysatay waxa loo yaqaano ku gaftay ee qaladka ka geysatay dee iyaguna tooda ha aqbalaan. oo anigu waxaan ahay maamulayaashii xilliyadii ugu dambeysay la magacaabay dugsiga loo magacaabay anigoo warqadaydii hore halkan taallo ee laygu magacaabay oo guddoomiyaha degmadu i magacaabay dee maanta oo xeer la soo saaray oo xeer laygu magacaabay maanta dee ma caqliga ma geli karto in laygu yidhahdo guddoomiyihii gobolka maantana ku bedelay oo iskuulkana ku bedelay. intaa marka laga yimaado dugsiga hoose dhexe ee qaadi maxamuud anigu ilaa arday baan ka soo ahaa 2014 baan ka baxay. isla markaasaan haddana shaqada dub uga bilaabay dugsigeygii ilaa iyo maalinkii ardaynimo. waxyaabahay odhan jireen ardaydu markay iskuulka la dhiganayo warqoladaasi waa guddi hadhuudhii. ilaa iyo maalinkan ardayga ahaa dugsiga tacab ayaan gelinayay. wallaahi been ku dhaaranayo anoo galaasigisa ayaan gacantayda galaasyada qaar sagxadaha ku sameeyey. markii dambe aan dugsi sare ka soo baxayna isagaan tacabkii kula soo noqday oo macallimiintaydii oo joogta aan dee isgarab istaagay. maamul ku-xigeen baan ka soo noqday. maamulaan markii dambe soo gaadhay. inta aan joogay waa muddo yaroo kooban oo 2 sano iyo waxaa. dugsigu wuxuu jiraa 26 sano ayuu jiraa. muu lahayn wax loo yaqaano dayr muu lahayn. dayrkaa iyadoo wax allaalay waxay dowladdu ku darsatay ama wasaaradda waxbarashadu garab naga siisay aanay jirin lacag 6,000 iyo siyaadaha ayaa geedhkaa nagaga baxay. ilaahay idamkii iyo ogolaanshiyihiisa iyo macallimiinta dugsiga joogta oo aan aad ugu mahad celinayo oo hawshaa igala shaqeeyey iyo ardayda dugsiga dhigata iyo waalidiinta ardaydooda dugsiga ay dhigato iyo ardaydii ka baxay ayaanu ku hirgelinay oo iskuulkii maanta waa meel ammaan ah. ardaydu iyagoo fadhiya daaqadaha candhuufta iyo xabaglayaashu halkaa kaadida kaga soo yeedhin jireen. dadaalkii waanu wadnay. muddada aan joogay ardayda ka baxday eedhkii waa arday 200 arday ku dhowdhow. weli hal arday kamuu dhicin. natiijada gobolka ugu sarreeya kuwa qarankaba way galaan. dadaalkii maan kala joojinoo ilaa iyo iminka waxaan wadaa oo qorshaheedii aan u wadaa oo aan qaab bareefada iyo qaab maxay ahayd muxsiniin iyo hawlo kale oo aan maxay ahayd dawladeenu aan iyadu ka qayb ahayn aan u wadaa dhigista marmarkii oo barxadda la dhigayo. ardayda oo berendayaal loo dhisayo xilliga xafladaha iyo xilliga nus saaca ay fadhiistaan. horta dugsiga isagoo uu dugsigeygii yahay aan ka soo baxay oo uu xaq igu leeyahay muddadii koobneed ee aan joogayna waxyaabaha aan ka qabtay waxyaabahaasa ka mid a maantana aan usii faydanahay ee aan maxay ahaatay dee si niyad sami leh oo wanaag leh oo wacan aan u waday oo aan doonayay inaan maxay ahaatay wixii intaa halkaa aan joogo inaan waxba ka hagran naf iyo maal iyo adduun midnaba. waxaa jira dee kacdoono ardayda oo maamulayaal gaara lagu eedeynayo la leeyahay idinkaa kiciyey. sida aniga oo ah maamulaha dugsiga qaadi maxamuud maamulaha dugsiga halliqin anoo waxa weeyaan taana waxa sababay waa wasaaradda iyo cidda magacaabista samaysay. maanta waxaa la leeyahay waa bal aan isu nimaadno hala tashado oo miiska wada hadalka kaalaya. miiska wada hadalku wuxuu ku wacnaa markii hore in naloo yimaado oo nalagala tashado. dee dugsiga aan joogay waa dugsi baaxad leh. waxa weeyaan ardayda intaa leeg ay dhigatay ee eedhka 200 arday ka dhigato ka baxdo arday muxuu ahaayey 1,000 iyo dhowr boqol arday ay dhigtaan. maanta dugsiga kale ee laygu yiri waa tegaysaa lay magacaabay
هو دugsi ka tirsan oo maamulo wada leh oo sida dugsiga Qaadi Maxamuud ee aan joogay gelinka hore iyo gelinka dambe u leh noocaas oo kala ah waxaan u arkaa in meel lagu canqabay muxuu ahaayay hanjabaado fara badan ayna soo gaarayaan xilka waa lidinka wareejinayaa khasab baa lidinkaga qaadayaa halkii lidin geeyay baa tagaysaan disaasina wax suuragal ah ma aha ugu dambeyntii waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa dugsiga sifada sharciga laygu magacaabay imkana sifada sharci darrada laygu leeyahay kaga tag in aanan haba yaraatee hawsha anigu aqbalaynin de wixii halkaa ka dhashay ee mas'uuliyad darrada hawlana tii hore iyo ta imankana anigu aan laygu eedeynaynin oo ay kacdoonka iyo nidaamyada ay ka bilaabmayso waxaan salaamayaa wasaaradda waxbarashada dhammaan ilaa iyo heer wasiir badin maayo 3 qodob ayaan doonaya inaan ka hadlo kow saxaafadan iyo waxyaabaha keenay inaanu qabanno saxaafadda waxa nagu kalifay waxa weeye marka ugu horeysa warqadan wiiftada ah ee nalaga horaan helay ee ardaydii iyo waalidiintii iyo suuqii wixii ugu horeeyay nagu salaamanay waxa ahayn ardayda iskuulka dhigata iyo dadka suuqa jooga nidaamku sida uu ku wanaagsanaa ee ku habboonayd ee sharcigu ahaana waxay ahayd dee in naloo yeedho oo guddoomiyuhu dee noo yeedho oo dabeedna nala tashado oo wax nalaga weydiiyo dee ilaa meeshii mas-uuliyiin joogta baanu nahay in wax nalaga weydiiyo wax waliba system la raacaa bay leeyihin ixtiraam bay leeyihin waxa weeyaan kala dambeyn bay leeyihin sharciga oo la sheegaana dee sharaftarle iyo dembi toona maaha haddii sharciga la tilmaamo oo la sheego oo leeyahay saasuu sheegaya dee in la isku qabsaday in la isku cambaareeyo midna maaha wasaaradda waxbarashada ee degmada dugsiyada hoose dhexe haddii aanu nahay dee iyadaanu hoos tagnaa warqadana meel laba kagamay caddayn oo kagamay saxiixnayn daasidaa lagu fadhiisan jiray miinooyin baa ku jiray geyr muu lahayn dugsigaasi waxa weeyaan dugsiga madaxda Somaliland iyo Soomaaliya baa ka bixin weey waxa habboonayd ilaa iyo daasidaha ilaa iyo imika aanu joogno dee idinkaan idin dhiibay miyay ku habboon tahay annagoo intaa la soo jiifnay in warqad kada wiifta aan la soo dhigo golaha waxaanu diidanahay ma diidanin anagu amar diida samayn mayna dee waxa weeye laakiin waxaan anagu diidanahay waa sharci jabin maanta halkaanu ka eegayna dalacsiin iyo abaalgud iyo abaalmarin in lagu soo bedelo macallin aan maamulaba ahayn la keeno iskuulkii maadaama iskuulka da'da weyn magac leeyahay almiina waxay ahayd haddii kulliba macallin la keenayo dee in la keeno kuwa nagu soo nala jooga ee nagula soo jabay in lagu bedelo dee la keeno haatan imanka iyo haatanna waxa weeye oo aan ku soo gabagabeynaya war arrintaa dib ha loo eego arrintaa dib ha loogu noqdo arrintaa ha la hubsado arrintaa ayaan lagaga dhigin ku jiqsi arrintaa ha la eego oo hoos ha loo eego aan codsanaynaa oo wasiirka iyo ka codsanaynaa ciddii kastoo ay khusaysaba arrintaa in hoos loo eego maamul cismaanow waxaad sheegtay inaad iskuulka tacab badan soo gelisay muddo dheerna aad soo maamuleysay sidoo kalena iskuulkan uu waqti dheer soo jiray oo cid kale ay kaaga horreysay adiga maadaama adiguba hore ula wareegtay maxaa diiday maanta inaad adiguna wareejiso marka horeba warqadan lafteeda imanka la leeyahay waa lagugu bedelayaa eeg warqadan la leeyahay waa lagugu bedelayaa ma sharci baa mise sharci darro maaha sharciga waxa u leh marka horeba eegada sharciga marka horeba waxa leh ilaa waxa leeyahay eeg wada khaldan in la isku saxo maaha wada khaldan waxa weeye
wasaaradda waxbarashada ee degmada inantii lahayd saxeexa warqadda ay ka soo bixi lahayd xafiiskeeda kuma taalaba warqadan baaban sharci ahayn badde maxaa la bedelaa haddii iskuulka lagu bedelay iyo kan lagu bedelay labaduba ay iskuulla dawladdu leedahay ay yihiin inaad iskuul kale oo dawladdu leedahay tagto iyadu maxay kaaga dhigan tahay waa sax laakiin waxa weeye meelna tacab baa iga galay kan la igeynayana tacabna igama gelin weeyaan inaan joogo kayga iskuulka tacab badan baa galay markaa waxa weeyaan inaan sidaas weeye maaha si kale maaha